ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ahna wasiirka arrimaha dibadda Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan iyo wafdi uu hogaaminaysa ayaa soo gaaray garoonka diyaaradaha ee magaalada Kuwait si ay uga qayb galaan shir madaxeedka wadamada Carabta iyo Afrika oo ay marti gelinayso dawladda Kuwait kaas oo ay ka qayb galayaan in ka badan 64 dawladood oo ka tirsan wadamada Carabta iyo Afrika. Marwa Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan ayaa markii ay soo gaartay garoonka diyaaradaha magaalada Kuwait waxaa soo dhaweeyay safiirka Soomaaliya u fadhiya wadanka Kuwait iyo qonsulka guud ee safaaradda iyadoo loo galbiyo hotelka Sheraton oo ay degan yihiin wasiirada arrimaha dibadda ka qayb galaya shir madaxeedka Afrika iyo Carabta oo furmi doona 17 bishan socon doona ilaa 18 bishan November. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan ayaan weydiiyay shirkan iyo waxyaabaha ay ka filayaan dhanka Soomaaliya inay la hortagaan iyo mas'uuliyiinta ay danaynayaan maadaama shirka ay madaxda Afrika iyo Carabta wadan waliba kii uu danaynayo marka uu shirka soo idlaado uu la kulmi doono. بسم الله الرحمن الرحيم شركة وحوي شر وشر أي وضع الدولة دني تذكر مرتقاتي الله بتلقى علي دولتها عربتي أفريكانك لقنا وده هذا الدون الدنا دقالها إيهور مرنتا دلال كاس والشر كسو قيب قليان إلى لحظة أفر دولة الصوماليات وفتقان أنا هذا وضع وكم مدح لكن وحاي من دون إن شاء الله سوق مقع مدحوينها كوهد لايا رئيس البرلمان كا مقدوميها برلمان كا جواري شركة وحو إلى بشا لباتن كيدو سعون دونا سقالي طبن كا إلى لباتن كا وانا شر أنفلايو إن وحيالا فربضان وفائدة أولا دالك يدانتا دادكبا إن لقاه لدونو waxaanan rajaynayaa in sidaas oo kale dad badan oo iman doona ay uga faa'iideysan doonaan kulana badanna waxaan ku tala jiraa inaan dawladaha aragno. Gudoomiyaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa isna lagu wadaa inuu soo gaaro magaalada Kuwait si uu uga qayb galo shirka ugu dambeeya ay madaxda ka socota 64 dal ee wadamada Carabta iyo Afrika oo isugu jira madaxweynayaal iyo ra'iisul wasaareyaal ay uga qayb galayaan magaalada Kuwait kaas oo ka soo bixi doono bayaan ay isla gaaraan dhinacyada halka ku shiraya Bashir Khaliif Gaani telefishinka qaranka Kuwait.